السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شروع صاحبي الميل بدوري دافيدي تعالى دبادي كده ونسين فضلا كان قاعدة تقول عصبتهاي سبسكرايب تلاك تشارت كومنت كين تبنا لو ذاك صاحب وحندوني أنا كهالله دقال كفرحية دبوس ليردي ما شاء الله كبر مقع عنك مسكين حن يولي بنا حني شرف ضيحت المشوخات متشوقة محاكو دحي dagaalka sharma boy iyo waliba Xuseen Ooje amba social media magaca looga bixiyay isla waqti xaadirka inta taaganahay farxiyo oromo Allahu akbar xaaladu inaba caadi maaha aanu ku horeyna saaxiibayaal dayaxtal nuurshan khaatimo ayuu joogaa maxaa ku dhacay dayaxtal nuurshan iyo mubarak October muuqaal yar oo isla duubayeen waadigan arkay saaxiibayaal balse laakiin dadkii maxay u bedeleen dadkii amba asxaabtii amba dadkii mucaaradka ku ahaa dayaxtan noorshe maxay u bedeleen bal leeyahay dhageysta saacadana dadka ku talagalay midda kale waqtigan ka fiiriso kuuma talagal ee waxaan ku sii waqtigan iskuursanay inaad ka fiiriso arina guriga ku jira dhamaadeen Soomaa waxaan wadiida maxaa soo dhigtay idagaysi su'aashan ku weydiiyay labadan wiil waa laba wiil oo asxaaba kadib waxbuu tusayo soo soo tirsaday hayaay waxaan ku leeyahay qaadi weyn kaas iska ilaaliya hayaay barba xamdaa uu ka car waxyaabo amba hadallo yani afnaak u qalmin ay hornaantii lagu la dhaqmay amba lagu yiri kulli isaguna waa fanaan Soomaaliyeed dad mucaarad ku noqon karaan dadna muxaafid ku noqon karaan fanka amba social media waxaad u soo istaagteen barna ku jeclaadaan barna ay wax ka sheegaan balse laakiin anu waxaan oran lahaa فنانك الصوماليات شعب كيس هرالك قشطة واي صومالي محمد مر بيشوكتوا اسكودميد صومالي ودم فنان وياهي إنه رالك اليو رير صوماليان أنا وجحلان لها سلام مذيثناضو برشة يا فنانين تنا قبيلة اللغة ديريو تحت النورشة بريسا تيك توك تو حصور جنب السوشيال ميديا إنه تخلق الدون صوماليان عادي إنه نروح من مدام فنان صومالية دي هي kumanaan qof oo ku jecel baa Soomaaliland joogan ba Hargeysa jooga laba qof oo community ka caayina yani inaad wadan dhan amba dad dhan aad u nacdid aad baan horta uga xumay waxaan jeclaan lahaa insha Allah bismillaahi kariim inaad raaligelin ka soo bixin doonto waayo inta ku nacab inta ku jecel baa ka badan fanaanimada amba xeerka fanaanimaduna waa sidaas insha Allah bismillaahi kariim noqon mid wax fahma sidoo kale waxa ka hadli doona dagaalka farxiya iyo waliba hani dagaalkaas muddo hor u dhamaaday balse laakiin waqti xaadirkan la taagan yahay dagaalku soo cusboonaaday yaa soo cusboonaysay maxay tahay dadka inta haysta ee social media isku haysta dadka qaar baan arkay komitiyada leh daaroodkana dhan bay iskaga jeesteen hawiyina dhan bay iskaga jeesteenoo habli yar raaba abgaal iyo habar kidir iyo waxa isku lahaynaya kulli sheekadaas in iska soo afkooda baan u maleynaya laakiin waa iska kaftan waxaas waayo laba qof oo islay qabiilo dhan ma matalaan horta qabiilo dhan ma matalaan maanta hawiye hadii laba hablood iska laayaan de hawiyo dhan ma matalaan wala reerkoodaan jilibkiga siiyin baan matalan xitaa laba nin haday iska laayaan daarada dhan ma matalaan ilaahay badkan badiyay marka farxiya iyo waliba hani horta waa naaga waaweyn naaga carruur maaha maanta maalintii qaangaadeen haddii guursan lahaayeen dhal lahaayeen waxaan aaminsanahay inay maanta carruurhooga ay carruur lahaan lahaayeen aadna uga xumayna social media dhexdiisa isku jijitaan iyagoo hablo waaweynaa oo waxaan ku leeyahay hooyooyina de midna ilaahay baa ka qaatay midna ilaahay baa u deystay oo waxaan ku leeyahay dad sharaf la ah in social media isku dhex jitaan anu horta aad baan uga xumahay halkana waxaan ka leeyahay ma fiicna dagaalka hooyooyinka amba hablo Iceland waxaan mustaqbal ku noqonayaa cayduna ma fiicna sidoo kale farxiyo waxaan leeyahay farxiyo adoo dad shirkaaga ka shaqaysay amba waqti iskilisay dadkan waxaan ku leeyahay baruurahooga iyo balqiyadooda iyo hilbahooga u daawalaale macaanay xilliga la soona magaraysaa dadka wangarana sidoo kale oo dadka qaar baa ka baqaba inay magaraysa waxyaabo la isku dhuubiyo waxyaabo isticmaalaan marka wuxuu ilaahay ku siibay alxamdulillah baa la yiraahdaa ilaahay si caafimaad leh iiga kaxay baruurta adaguna isku day baa la sameeyaa balse laakiin qalin iyo waxa suurto aad buuxin yahay runtii laakiin farxiya the boss lady waa gabadhan qaaliyo waa gabadhan jecelahay waxay sheegtay inuu xaalad caafimaad ay u martay qalinka
laakiin jidhku ilaahay ku siiyey jidh ciid cuni doonto jidh aboor iska leeyay ciidaas wax lagu faano ma aha wax lagu faano ma aha oo iska soo gabagabay walaal macaan marka waxaan ka codsanay dagaalka iska daayay hablo waaweyn baatiin carruha man social media isku jiita idukuna dumar waaweyn aqal ilaahay u siiyey maskax siiyey ayaa tiin fallan waxa ka fogaadanayda oran lahaa sidoo kale waxaan ka hadlayaa saaxiibayaal dagaalka Sharma Boy iyo waliba Xuseen Ooji oo meel xun gaaray waxaan arkay Xuseen Ooji oo hees soo qaaday oo ku karbaashay dayaxtal nursha hayaay Sharma Boy dayaxtal nursha waniga oo kale ku karbaashay Sharma Boy sidoo kale Sharma Boy waa soo karbaashay walibana karbaashkii ugu xumaanaar naar saaray laakiin Sharma Boy iyo kii raayay milyoonka soocay laakiin Sharma Boy raali galin buu ka soo bixiyay isagoo heesna u soo qaaday reerka qaaliga qiimaha leh warsan-gali oo leh maxay toy maakhir iyo warsan-gali bada waa dadkayga oo dhulkayga maadeerayaan dadkaana kala gurgurno ana kala saarina sanadkan waa sanadkii qabiilka sanadkan waa sanadkii qabyaalada sanadkan waa sanadkii fanaanku ugu hiilinay reerkiisa qabiil sanadkan waa sanadkii wariyuu reerkiisa qabiil ugu hiilinay laakiin waxa oran lahaa war maanta qabyaalad ka weynaada dhalinyaraatihiin dadkii inka waaweynaa waxay ku dhaqmi jireen inaad wax ka bedeshin way laakiin idinku haddaad يعني ودادي dadkii hore ay mareen aad taagnaatiin aniga aad ba ila fool xunta saaxiibayaal ruuxantii waxaasna wax laga qurux badan yahay waa inaad wadanka wax ku soo kordhisaa boqol iyo konton jeerna way idin sheeg waa inaad bulshada wax ku soo kordhisaa 2004 baa la marayaa saad qabyaalad ku dhaqmaysa qabiil loo cuqo aad ban horta uga xumay dadka waxa ku dhaqmo waana ka waaninaya 195 waxa leeyahay waxyaabahaas walaal ma fiicna bliis iska daayo ka fogaad inta ka fogaan kartiin Soomaalinimada in ka badan war cid kuma diidayso cid kuma xumaynayso cid waxba kuma sameynayso hadad magaca Soomaali ku dhimatid cid walba haday walaalka noqoto mid walba arka haduu walaalka noqdo mid walba qadiyadu aaminsan dad ku qadarsid والله waxaan ku leeyahay waxaan aaminsanahay in Soomaali Maxamed oo fadhiga ka kacayso aad ba maasad saaxiibayaal waxaan idin leeyahay dhalinyarta social media inta badan laga daawado fadlan ka hadla qabyaalada oo noqdo qabyaaladid والله heer bad gaaraysin qabyaaladid noqda laakiin dadkii ugu caansanaa social media la daawanayay hadii ay ku dhaqman qabyaalada dadka ina daawada amba inagu xirana boqolkiiba boqol way ku dhaqmayaan qabyaalada walibana boqolkiiba 200 ay ku dhaqmayaan qabyaalada ma fiicnaan qabyaalada iska din saaxiibayaal aad iyo aad ba maasantii muuqaalkana qaranto kulmi doona stasyo nabadeed